السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha waa salaamantihiin meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Ku soo dhawaada xubinteena kobca maskaxdaada oo maanta ku soo qaadan doono xikmado iyo oraahyo cajiib ah. Balse intaan u gelin barnaamijka ka hor waxaan idin la wadaagayaa kanaal aad u muhiim ah oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan insha Allah. magaciisana waxaa la yiraahdaa Caynte Show. waxaad insha Allah ka heli doontaa barnaamijyo xiiso badan oo noloshaada wax badan u faa'iideyn doona. waxaana idinku soo dhaweyn doonaa insha Allah walaalmahad Xuseen Axmed Caynte. haddaba si aad kanaalkaasi u rukumataan uguna biirtaan linkiga kanaalka ayaan idiin soo dhigayaa qaybta description-ka ama commentiga ugu horeeya. haddaba waxaan idiin rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah. haddana asxaabay aan gudaha u galno barnaamijkeena. Allah ha u naxariista adoon naftiisa ku yiri naf yahay soo waxa maadan sameyn soo waxa iyo waxa maadan sameyn kadibna naftiisa canaanta oo markaa kadibna hogaamiya una wada kitaabka Ilaahay oo markaa uu noqdo hogaan. ruuxii naftiisu la weynaato oo is sarraysiya wuxuu duleeyay diintiisa. ruuxiisa naftiisa duleeya waxa uu cizeeyay oo uu sharaf u yeelay diintiisa. waxa yiri hadalkaas mufassirka weyn Mujaahid. qalbiyadu waa sida dhariyo karkaraya oo kale, carabiyaduna waa darayaashii soo dari lahaa waxa gudahooda ku jira. haddaba eeg, qofku markuu hadlaayo carabkiisu wuxuu ku soo darayaa waxa qalbigiisa ku jira oo leh macaan, qaraar, dhanaan iyo wixii lamidaba. dhadhanka qalbigiisa waxa ku qeexaya oo ku cadeynaya daritaanka carabkiisa. waxa yiri hadalkaasi Yaxya bin Mucaad. salafka qaar ayaa yiri malaa'igta ayuu Allah abuuray, caqlina wuu siiyay, balse shahwo iyo baahi kuma abuurin. bahaa'imta iyo xoolahana wuu abuuray, shahwo ayuu ku abuuray, balse caqli kuma abuurin. bini aadamkana wuu abuuray, caqli iyo shahwana wuu ku rakibay. qofkii caqligiisu ka saramaro shahwadiisa wuxuu haleelayaa malaa'igta. qofkiisa shahwadiisa iyo baahidiisu ka saramarto caqligiisa wuxuu ku biirayaa bahaa'imta iyo xoolaha. la fariisashada dadka wanaagsan 6 ayay ka bedeshaa oo 6 bay ku bedeshaa. shaki bay ka dhoofisaa oo dhabta bay ku geysaa. istustuska bay ka wadaa oo ikhlaaska bay ku geysaa. mooganaanta ayay ka wadaa oo xuska Allah ayay kula mataanaysiisaa. adduunyo jaceylna way ka fujisaa oo aakhira jaceyl bay ku dhaxalsiisaa. kibirka, takabburka iyo isla weyninka ayay ka wadaa oo tawaaduca ayaad u talaabsataa. niyad xumada ayay tuur ku tiraa oo talada iyo nasteexada kugula talisaa. guuldarrada iyo fashilku maaha ilaa jab waqtiyeysan. jabkaasi ama guuldarradaasi oo ku abuuraya fursadihii guusha. 7 saacadood oo ay kugu qaadato qorsheynta fikirro iyo hadafyo cadcad ayaa ka wanaagsan natiijada qorshe ka qaatay 7 maalin oo aan lahayn wax jiho iyo hadaf ah. noloshu qiimo ma leh haddii uusan jirin shay aan dartii u halgamayno. haddaba u halgan raaligelinta Allah oo ku dadaal cibaadadiisa. noloshu waa sida qiso qurux badan oo ay waajib kugu tahay inaad akhriso ilaa dhammaadka. haddaba ha istaagin weliga oo ha ku joogsan sadarka murugta leh. laga yaabee in dhammaadku qurux badan yahay. casharada nolosha wax badan ayaad ka baran doontaa markaad si wanaagsan u eegto in kuwa dabka damiya aysan dabka ku damin ama uga hortagin dab kale. iskuulka macallimiintu waxbay ku baraan, markaa kadib bay ku imtixaanaan. balse noloshu way ku imtixaanaysaa, markaa kadib bay cashir ku baraysaa. shaki kuma jiro in noloshu qaali tahay, balse naftaada ayaa noloshaada ka qaalisan. 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 naftaada ayaa noloshaada ka qaalisan.